السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو روحان سلام يا دمان مرتجر فران كسو قيب قلي dadkii ka soo qayb noqday xisbiga kulmiye hortaan waxaan aaminsanahay wax lagu biirin waxa la isku daraa waxba la isku daraa faatiicana la isku daraa laakiin waxaad ku qanacdeen mabaadida xisbiga kulmiye inagoo meel badan dheedeynayay wad ku maasantiin hawsha aad nagala soo qayb gasheen marka hore waan nagu soo dhaweynaynaa si gaar ah waxaan soo dhaweynayaa Cabdi Fataax Saciid oo nin muhiim ah oo kulli anagu si kala saxaab nahay Cabdi Fataax ku soo dhawo magaaladaadii waa magaalada lagu soo dhaweyn maayo laakiin adiga dadka qayb ka soo dhaweynaysaa laakiin maadaama hadda safar nagu tahay xil weyn baan naga ka saarnaa ku sharafno gogosha waa niga mahad celinaa si sharafta leh adiga looga soo qayb gashay xafladan waqtigaaga noo soo siisay adiga aad biiso dhammaan waxa la soo gaaray waqtiyada ugu dambeeyay xisbiga kulmiye hadalku yaraanay hawsha badanaysay ana fiican iyo laati iska fiican iyo laati noord ka fiican iyo waxa way dhamaatay TV-ga marka daawanaysa hadda waas dhaafsaa barnaamijyada qaar hadaan doonayn laamahu waxa u taala shaqo fara badan kulmiye waan wada leenahay dalka waan wada leenahay dal nool baan nahay inaan horumar sameeyno ayaan diyaar u nahay waxaan qabanayna inaan ku xarrogonaan muhiim u nahay inaan qaarna ka qabarno qaarna aan quursanno ma qof kasto xisbiga wuxuu qabtana taariikh buu ku leeyahay xisbiga kulmiye haddaad xitaa adigoon meel ka tirsan xisbiga aad u qabanayso waa lagu ogyahay dadku ma dad xawayaana madaxweynaha ku og ninka xilka ayaa og haddii maanta Muuse Bixi aad noqon lahayd ka waran maxaad u baahan tahay waa adigu iska soo qaadina tahay xilka ninka raba aan Cabdiraxmaan rag xilka raba inaan waxaad u baahan leedahay garan kartaa waxaad jeceshahay cid ku caawisa cid dhaqaalaha ka bixisa cid iska garab taagta cid meelaha hadalla jajaban iyo malaayicin kula timaado ma jeclid marka waxaad ka tiirsan tahay waanad ka muuqatid ma aha inaad waxa leeyahay ka muuqo amba ka maqlo meesha inaan ka muuqana rabnaa xisbiga kulmiye waxaan u ballan qaadnay inaan bixino waqti adag baa lagu jiray hadda waxaan maqlaayay wali rag ciyaar maaha waxa maalin dhow doorasho ka dhacday baarlamaanka 8 iyo 9 maxay waxa lagu kala helay wax noocaasa ma naafilin doorashada 9 marka nisi kadib ma nabad gelin waxaasoo kale waa nasiib waxa wax ka badan marnaa boqolkiiba boqolna wax ku helaan rabnaa kuma helayna hadal macmacaan kuma helayna hoolan ku cashayno waxaan ku helaynaa karti iyo xoog iyo isku duubni iyo midnimo qaran taasi haddii nagu jirin waqtigoona anaga iska luminayna xisbigana waqti baan ka luminaynaa taasna leeynaga filaayo dadku waa isku mid dal qudaan wada leenahay Soomaaliland baan nahay xisbiga kulmiye nahay waanu mahad celinaynaa cid kasto halkan waanu mahad celinaynaa Maxamed Saciid si gaar ah ayaan ugu mahad celinayaa kala qaybsanaatu ma qurux badna marka hadlaysa ra'iisul wasaaraha Ingiriiska waxa ka hadashaa unit isku midnimo ay ka hadashaa kulay dad midaysan baan nahay family baan nahay waxa muhiim ah oo waxaan ku sheegayaa shir balaaran baa dhici doona September dhexdeeda waxaan u baahanahay 100 kun hadaan gaarno xisbiga kulmiye hoolkii lagu qaban lahaa in la soo diyaariyo xalay baa arinta lagu dhawaaqay halkanaan marka gaadhiga waxa marka la kicina diyaaradda intaan hawada kicin waa la kuleeyaa si ay u qaadato mataqaana uga itaaranaad hawada xisbigu halkan ayuu ka dhaqaaqayaa mardhow waan qabanay markuu maraayay gobolada bariga kun baawar baa la socotay ku ka baawar biyo kuma socon batrool bay ku socdeen dad baa la socday waxbay cunayeen dhaqaalaha loo baahan yahay laamuhu waa inay dadaalaan annaguna waa inaan dadaalno waxaan wacyi gelin karnaa wacyi gelino hal isku dul qaato leeyuma teelgelaan dheereeyo laakiin waxaas malaa'ikana dadka u dan tahay inaan saa hadalka uraan u qaatay iga raali ahaada si gaar ah waxaan soo dhawanayaa Yurub oo iloobay afgadwaanku ilowdo iyo madaxdeeda xisbiga mataqaana gudiga fulinta madaxda laamaha inteenu waa dadaalayna dadaalka adduunka aakhir waa loo baahan yahay ka siyaasadana waa loo baahan yahay waa soo gaabinayaa wiilka abtiwalaha soo xidh